السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. reer qalbi nuura kusoo dhawaada qalbi nuura channel. intii hore u joogto waxaa idin leedahay soo dhawaada, inta cusubna waxaa leeyahay soo dhawaada, dhammaantiin soo dhawaada. qalbi nuura channel maanta waxay idin wadaa cilaan buufis waxaa waaye aada u naqaanaa dhisma baraayo gaali iska arag laba naqshadood oo calaacash dhexdooda oo qurux badan cilaan marweed ah oo hadee naqshadihii cilaan buufiska asalka ahaa waxaa waaye cilaankii dhalinyarada maaha kan. asxaabe maalin hore waxaa igu dhacday cilaan hindiga aan aqaano oo nus dollar kala gadaaye aa soo gaday isdhahay, isla markaa soo gatay wuxuuba noqdaybo cilaankii la qasaaye ee malooqa ku saaranayn ee cilaan buufiska lagu saaranaye. sidaas darteed laba caleen oo qurux badan anoo baroobeynaayo ama u shaqeynayn isdhahayo aa calaacash dhexdeeda dhab ku siistay. kaali iska arag quruxuu noqday wuu ii soo baxay, gadaal waan iga tusi doonaa siduu noqday insha Allah. laakiin hadda waa kaas naqshadii koowaad way dhamaatay si yar oo qurux badan, gadaal aa fiidiyowga iga tusaa hadda, laakiin naqshada kale aa soo dhameynaa. waa ujeedin haddaa bilaabay maasha Allah. laasaa u maleynayo ma aqanin anoo cilaan hindi gadaayobo cilaankaas oo noqday. haddana waxaa is dhahay ama u halaaba yacni kuleelna ma lahayn, urgooniyana ma lahayn, yacni cilaan hindina ma ahayn, cilaankii kale oo malooqa lagu saaranayo cilaan buufiskana ma ekeen. marka anoo yaabanbo laakiin maasha Allah qurux uu noqday. unaqnaqa ma ka dhicin oo hee soo noqnoqotay manaqa food aa maqli jiray. waa kaas waxaa ku dhahay naqshada kalena gebangebeeda maroosaa. waxaa waaye wax marka la bilaabayo goorma dhamaan doonaan aa la isdhahaa, laakiin mar haddii la bilaabo way iska dhamaanayaan. waa kaasaa maasha Allah. waxaa idin leeyahay asxaabta cusub iyo asxaabta hore u joogtaba like-ka, share-ka, comment-iga, subscribe-ka waxaasoo dhan waa noo dhiirigelin. waxaa waaye adina wax markaa dhegeyso anigana wax weyn aa noo taraya insha Allah. aan kala faa'iideysano markastoo like-ka badato waa markastoo dad cusub uu gaaro oo like oo maxaa la dhahaa aan kala faa'iideysano. waxaa waaye ilaahay kuwii cilmigooda lagu faa'iido hanaga dhigo iyo kuwii wax kororsaday intaba. waxaa waaye artist-ka wax oo perfect la dhahaa ma jiro, yacni qof oo khatar ma jiro. qofka ugu fiican oo waxaas muddo sanado kusoo dhex jiray mar walba artist-ka waxa lee ka dhiman waa baranee, mar walba wax cusub waa baranee. waxaa waaye ani dadaa kasii bartaa, ayaga daday kasii bartaan, mar walba naqshad cusub aa kusoo dhacaysa. adoo qof xitaa wax ka baran wax cusub aa kugu soo dhacaayo, wax cusub aa sameynaysaa, waxaa baroobeynaysaa, wax cusub ay kuu noqonayaan. marka isku dayga yaa laga daalin insha Allah. hala joogteeyo wax haddii dawaam loo sameeyo oo la joogteeyana maasha Allah ilaa aa maalinta 10 daqiiqo sidaa waa arkay natiijo fiican si dhaqso ah heliga. waa kaasaa waa soo dhameeyey. naqshada labaadna maasha Allah faro yar oo waxaa ka tuurtay kaali iska arag oo kor u jeedo hoos oo lagu daalo camal baa ka dhigantahay ma ogi. waa kaasaa marka maasha Allah waa soo dhamaaday cilaanka laba naqshadood oo qurux badan iyo farahooda oo cilaan marweed ah iyo cilaan maamooyin ah. kaali iska arag gabdhaha xataa wax u diidaya ma jirto. hadeertaana cilaan fashion la bartaa laga ilbaxa ma ahan, waa la saaran jiray awalbo. marka waa kaasaa asxaabe faa'iideysi wacan insha Allah. hadhowna waa arkeysiin gadaal soo noqday kilib yar oo waxaa kutusinaya. waa kaasaa laba naqshadood oo qurux badan oo kaali iska arag oo noqday. maxaa la dhahaa gadaalna waa ka arkeysiin waxaa kusoo jeediyey kilibkaas yarka sidaas quruxda badan u